بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ummadda walaalaha ee muslimiinta ah meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan salaanta islaamka ayaan idinku salaamay maanta waxaan ka hadlaynaa hurdo la-aanta iyo dhibaatooyinka ay dadka u keento maasha allah hurdo la-aantu waa cudur aad iyo aad u xun haddii ay hurdadu kaa xumaato maalintaaduna ma wanaagsanaanayso waayo hurdada ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay oo inagu yidhi waxaan idin siinay maalin aad wax macaashtaan iyo habeen aad seexataan marka hurdada habeenkii aad iyo aad bay u qiimo badan tahay waxyaabo dad badan baana ka cawda dhakhaatiirta ingiriisku markii research la sameeyey waxay sheegeen boqolkiiba 36 dadka wadankan jooga in ay dhibaato ka sheegteen oo ka cawdaan hurdo la-aan taasi waxay ku tusaysaa dee populationkiiba waa half nearly half 50% 36 marka laga jaro wax yar baa ka hadhay marka dhibaatadaasi dhibaato yar maaha dad badan baa taablada qaata dad badan baa dhibaataysan marka oo habeenkii marka sariirta tagaan hurdo la-aan ama marka ay habeenkii noqoto warwar badan u yimaada hurdo la-aanta aawadeed marka maanta waxaan ka hadlaynaa bal sidii aynu hurdo la-aanta iyo dhibaatada iskaga caawisan lahayn iyo waxyaabihii aynu ku ilaahay wax walba dee wuxuu u sameeyey dawo iyo difaac runtii ama ha noqoto cunto la cuno ama jirkeena oo aynu ka shaqaysiina ha noqoto waxyaabo badan horta runtii inuu waqti aad samaysato discipline jirkaagu lahaado aad iyo aad bay u wanaagsan tahay oo aad habeen walbana waqti toosto seexato habeen walba aroortiina waqti fiican toosto inta u dhaxaysa haddii ay habeenkaa hurdadu kaa xumaato inaanad u dhaqaajinin oo aanad intaad habeenkii kaa xumaato haddana maalintii seexanin oo haddana habeenkii hurdo la-aantii kugu dhicin haddii aad habeenkii kaa xumaato maalintii ha seexanin habeenka dambe dee wax kale oo jira mooye waad seexanaysaa insha allah marka waxyaabahan imika aan soo wada ayaa waxyaabaha inaga caawinaya ka mid ah oo qofka bini-aadmiga u baahan yahay waxa halkaa idinka muuqda waa nooc marka qofku tukado ee uu salaada ka baxo runtii haddii uu sidaa sameeyo habeenkii weliba marka uu tukado salaada cishaa'i aad iyo aad bay u caawinaysaa relaxation bay jirka u sameynaysaa jirkay dabcinaysaa barasharka oo dhan baa degaya anxiety-ga iyo waxa loo yaqaano diiqada oo dhan baa yaraanaya maasha allah sidaasi aad iyo aad bay u qiimo badan tahay haddii aad sidaa samayso masajaadadaad ku tukato un haddaad gacmahaaga sidaa iskaga horreysiiso oo aad in muddo ah ku hayso aad iyo aad bay ugu fiican tahay jirka hurdana waxyaabaha keenay ku jirtaa lagama sheekeyn karo waxaa yare intaa yare aad samaynayso adiga faa'iidada ay kuu leedahay maaha wax qiimo yar marka runtii waxa xaqiiqo ah jirkeenna dhaqdhaqaajiskiisu exercise inaad samayso inaad maalintii socoto waa waajibaad inaga saaran jirka waayo haddii aad jirkaaga runtii bal gidaarkaa dhis muddo dheer buu joogayaa warqad meel dhig 20 sano kadib xashiish bay noqonaysaa jirkaaga dhaqdhaqaajiso socodkaad socoto aad iyo aad bay u caawinayaa ciyaar maaha marka kolleyba sidaasi way wanaagsan tahay ilaa 2 daqiiqo 3 daqiiqo sidaa u joog insha allah waxyaabaha kale ee caawiya ee hurdada marka aad habeenkii sii seexanayso u wanaagsan waa inaad madaxaaga iyo mijahaaga meel iskugu keento oo aad sidaa u foorarsato waayo had iyo jeer kor baynu u taagannahay madaxeena dhiigga gaadhaa wuu yaryahay markaad sidaa tiraahdo runtii maskaxdii baa dhiiggii hoos ugu daadegaya aad iyo aad bay caafimaadka kaaga caawinaysaa iyo hurdadaba marka habeenkii markaad sii seexanayso markaad mar sidaa gacmaha u kala bixiso marna madaxaaga iyo mijahaaga sidaa iskugu keento runtii waxbaad ka dareemi doontaa isbedel ah oo insha allah ku caawiya ciyaar maaha waxyaabahaasi way yaryar yihiin imika sawir yar baad u aragtaa laakiin aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin marka aniga naftayda iyo walaalahayba waxaan ku waanin lahaa in ay sidaa sameeyaan insha allah oo dadku sidaa sameeyo mar walba oo ay habeenkii markay si seexanayaan mar waxyaabaha kale ee caawiyo oo ay ka mid tahay iyaduna cagaha gidaarka la saare cirka loo taago haddii aad cagahaaga gidaarka saarto ood cirka u taagto iyada laftirkeedu waa dawo waayo maalintii oo dhan cagahaagu hoos bay u jeedaan inaad circulationka dhiigga kor u qaado oo aad sidaa waxay kuu samaynaysaa relaxation cuntooyinkan oo ugu horeeyo cuntadan loo yaqaano cheeska oo Swiss cheese baa la yidhaahdaa waa ka cas aad iyo aad buu wanaagsan yahay laakiin muxuu yahay waa fatty waxa baruurta leh goormaad cunaysaa 2 saac 3 saac ka hor inta aanad hurdo tegin ayaad cunaysaa
marka number 1 buu ka yahay cuntooyinka habeenkii hadaad cunto kaa caawinayo hurdada marka waxa wanaagsan in aad isaga laftirkiisa cheese-kaas aad iyo aad buu u wanaagsan yahay Swiss cheese baa la yiraahdaa aad iyo aad buu u fiican yahay marka inaad cuntaa caafimaadkaaga ayaa ku jira hurdadaada ayuu kordhinayaa ciyaar maaha wax yar oo inaga aanan waxba u qaadanin laakiin amaanka aad ka cunayso qofku ilaan caqli buu leeyahay wax badan kama cunaysid wax yar baad ka cunaysaa waayo kalorigiisu wuu fara badan yahay ciyaar maaha waa subag sidiisii meel fadhiya bahashaasi waa popcorn bahasha loo yaqaano waa saloolkeeni oo nooca laga sameeyo galeyda ama arabakhe anigu aanu aqaano runtii aad iyo aad bay u wanaagsan tahay popcorn-taasi waxay leedahay waxyaabaha hurdooyinka keena maadooyinka hurdooyinka keena ayaa ku jira waxyaabaha aan sheegayo oo dhan waa research of scientists waxay ku jira waa maadooyinka hurdada keena ayaa ku jira marka maadooyinka hurdada keena maadaama ay ku jiraan jirkeena aad iyo aad bay ugu wanaagsan tahay marka popcorn hadaad adigu ma hata microwave-ka lagu kariyo suuqa laga soo iibiyo midnaba adigu hadaad in yaro aad subageeda iyo sonkorteedaba garanayso in yaro saliida in yaro milxa sonkor kuba darimaysida maasha Allah oo aad adigu gacantaada ku samaysatay way ka caawinaysaa hurdada bahalkan waxa loo yaqaan cuntooyinka loo yaqaan superfood buu ku jiraa waxa la yiraahdaa cherries waa cunto waxaan maleeyaa waa khudradaha u baxa dadkan meel baa laga keenaa adigu kulley ma aha wadankeena anigu kuma arag inagu mid caynkaas oo kale oo ka yar baan lahaan jirnayo loo oran jiray hunguri dhubuqdiina kani waa hunguri dhubuqdii uun adigu una macaan yahay runtii aan waan jecelahay bool yar hadaad fiidka hore ku soo ridato inta xogay ka hor ma aha waqtiga hurdada u dhow maaha 2 saac ka hor 3 saac ka hor marka habeen fiidkii hore 6 oo kale hadaad bool yar intaad in yar ku soo ridato cunto isaguna waxa ku jira maadooyinka keena hurdada maasha Allah cherries-kani waa antitoxin faa'iidadiisa mineralka ku jira lagama sheekayn karo waa cuntooyinka isaga laftirkiisu loo yaqaan superfoodka aad iyo aad u qiimaha badan cudurro badan buu difaacaa lagama sheekayn karo full of vitamin C baa waxyaabaha ku jira maadooyin fara badan oo aan halkan hadaan isaga kaliya uun ka sheekaysiraa waxay ugu qaadanaysaa caawa oo dhan inaan isaga kaligii wado marka waxa weeyaan cherry-gaasi yaan loo daymo la'aanin aad iyo aad loogu dadaalo waliba waa fruityada samarka baxa sida maangaha iyo watermelonka iyo aad bay caafimaadka ugu wanaagsan yihiin seasonalka waxa khudradaha baxa inaad cunto aad bay u fiican tahay waayo khudradaha kale waqtiyada kale waa la helaa laakiin khudradaha qaar waqtiyada qaar un baa la helaa marka waqtiyada la helo waa inaad aad u cunto halka waxaad ka arkaysaan journal horeba waad u maqasheen baan u malaynayaa inaad qorto wixii maalintii ku soo maray in aad wax akhrido before bed aad iyo aad bay wanaagsan tahay especially waliba hadaad doonayso inaad wax runtii seexato masalan maanta wax adag baad soo qabatay hadaad qorto kaas ay igu dhacay ama qof istisheen kaas ay igu sameysay kaas igu sameeyay wixii waa release gareynaysaa ama kitaabkaaga iska sii akhrisato maasha Allah banaanuhu ciyaar maaha potassium baa ku jira magnesium baa ku jira waxyaabaha ku jira lagama sheekayn karo aad iyo aad buu u wanaagsan yahay oo ka caawiya dadka hurdada wax walbana waana macaan badan yahay goormaad cunaysaa wax walba dhowr saacadood ka hor inta aanad seexanin baad cunaysaa waayo waqtiga ay hurdadu soo dhowdahay hadaad cunto wixii aad iyo aad waqti calories bay leeyihiin way marka waxa weeyaan waxoogay ka hor inta aanad seexanin ayaad cunaysaa insha Allah hadii Ilaahay yira oo aad banaanaha galkiisan ku kariyay xataa cajiladaan soo duubay baan isaga galkiisan isku kariyay aad iyo aad buu wanaagsan yahay habeenkii hadaad cabto macaabiyihiisa halka waxa idinka muuqda shaah la yiraahdo Valerian aad iyo aad bay u wanaagsan yahay Valerian-kaasi insomnia waxa la yiraahdaa hurdo la'aanta aad buu u caawiyaa xataa isagu anxiety-ga waxa loo yaqaan diiqada waxbuu ka taraa madax xanuunka waxbuu ka taraa caloosha xataa digestion sida u shaqeyso waxbuu ka taraa dumarka marka ay weynaadaan caadadu ka tagto waxbuu ka taraa waxay dawooyin badan baa ku jira halka waxa ka muuqda chamomile oo ah tea isaguna loo cabo hurdo la'aanta
waxaasoo dhan cuntada iyo shaahiyada aan iskugu kiin soo daray maasha allah intuba waxa ay kaa caawinayaan hurdo la-aanta waa in aynu marba wixii dabiiciga ahun baa la qaatay waqtigaaga iyo exerciseskaaga iyo waxaasoo dhan naftaada ka mas-uula wabilaahi towfiiq salaamu calaykum